نوضونا كورن deegaanka boo oo aad hadda halkan ku matalaysay shirkan deegaanka boo ilaa baa loo dul sheegsaday abaar baa ka jirta hadda waa nabadgelyada waa ugu horeeyay marka abaarta laga reebo laakiin abaartaas ay jiro abaartu wax khatar ah wax walba saamaysan weeye waxaan noo saameysay si weyn oo hadda saddexdan roob ugu dambeeyay rooma qaban ciidana jiya abaarta caynkaas ka jira waa iska garan karnaa dadkan tabar yar iyo magiisi iyo tuuladu waxay ku tiirsan tahay waa iska xoolo dhaqato hadda saameynteedii ilaaha maartay oo sheegsana ka waran gudoomiye waxay u maqaalaa in deegaanku uu saartay motor una soo lahayn oo aysan biyo jirin biyaha marxaladooda ka hor biyaha marxaladoodu hadda saddexda jiidaal oo dambe biyadaan laga bilaabsada marka hore baraaga waaweyn maahan baraaga badan baa ku yaala ka waxaan ku tarifa oo maaragtay qodob meel laga haan qodmo weeye dhulkii afar roob kii ugu horeeyay biyaha galay shidaalkan hadda aan joogno kiil afar ahaa annaga ta badankoodu isku jiidaal noo baa biyo la laysta shidaalka dabadiisa waa la biyo dhaansaday ka waran doona 3 sano in deegaan biyo dhaamisa oo xaaladiisu ay sidaas tahay dadka deegaankaasi ku nool oo miyi magaalada ku nool xaaladooda saaka maanta mooysan xaaladooda soo xarooday wax gabaabsi maya waa xarooday dad badan baa soo xarooday jariin bay ku xaroodeen galka ay ku xaroodeen seemada ay qaarkood way farbadan yihiin xooluhu ka waran biyaha ka war lowrka biyaha saddexda sano intee waa lagu geynaya lowrka biyaha balada soddonka qaada waa kala duwaneed waa hore shidaalkaan iyo macayshadan dhibantay intee sarqaaqada lixdan baa lagu geyn jiray hadda ka waran boqol baa lagu geeyaa soo qaad boqol baa lagu geeyaa hadda lowrka kilomitir isku jira jirimin baashi waa hormaraya 17 kilomitir 17 kilomitir boqol baa lagu geeyaa wada xumada maaragtay keenaysa wadada aan ka baaba'day macaashada biisi shidaalka aan walba ka qabtay haddeerayba noogu dhaaranayaan boqol kilomitir keenayno maaragtay laga sii badinayo ciisadii baa sii qaaliyo dadka markay deegaanka ku nool saddexda sano wax ka hayaamo hadda meesha loo hayaamayo aaday ma jiraan wuu hayaamay dadku laakiin badanaa markii aan kuu sheego ayadoo isleenahay saameyn bay waxay ku leedahay awood darrida biyo dhaamiskaas u dhigay badankiisa dadku wuu joogaa badankiisa dadku wuu joogaa biyahaas halkaan laga qaado 20 kilomitir baa looga soo arooraa xooluhu 20 kilomitir bay hadda uga soo arooraan iyadoo 22 iyo meelaha oo labada dhanba ka jira dhinaca hoose iyo kor labadaba ka jira saddexdaas sanana dadkaas waa biyalaan saddexdan nur waa biyaalaams haddana mar ilaahay naga saaray ilaahay naga saar baan leenahay waxaan hadda la joognaa gudoomiyaha deegaanka Mareer gudoomiye soo dhow anigu deegaanka Mareer gudoomiyihiisa baan ahay meeshaasna waxa ka jirta kuwii lagama helin roobkii abaar baa ka jirta xoolihiina waxna waa hayaameen oo waa guureen badankoodina waa joogaa oo in badan baa joogta oo tiro badan haday magaalada tahay haday miyiga tahayba barkadaha la isticmaal jiray barkadihiina biyo mare sidaas hawshu maraysaa oo abaar baa ka jirta meeshaas ka waran Mareer wax ceela ma leedahay oo biyo maya wax ceelo biyo ma leh xageeba biyo ugu dhow biyo jariin intaan joogna ugu dhow baa laga qaadaya meeshaas laga qaadaa ka waran dadka deegaanka waaga hore waa tii Mareer la isku yimid dadku isku yimid ilaa ciid ilaa Itoobiya la iskaga yimid dadkii deegaanka yimid ayagu ma noqdeen dadkiisa deegaanka oo joogay loogu yimid ayagu marxaladooda ayagu ma guureen meesha loo guuray mise wali magaalada bay degan yihiin dadkii soo guuray oo deegaanka yimid waa guuro waa noqday dadkii deegaanka joogayna waxa la oran karaa markii la yiraahdo 4 meelood meel baa guudhaal oran karaa saddexna waa ay joogtaa ka waran saddexdaas joogta marxaladooda ayagu maxay la guuri waayeen marxaladooda waxay la guurin waayeen waxay ku guuri lahaayeen bay waayeen oo awood ah baabuur baa lagu guurahayay baabuurta lagu guurahayana kharash bay rabtaa kharash la'aan bay la guuri waayeen ka waran gaariga Mareer xoolaha ka qaado oo baabuurta waaweyn aan milayaasha meesha dadku roobka isugu tago roob ka daay intee buu gaarigaas lacag ahaan qaadanaya lacagta wuxuu qaataa Mareer xoolaha laga qaado 1300 iyo 1400 buu ku geynayaa ka waran biyaha jirima laga qaado lowrka biyaha dadka Mareer degan baadiyaheeda lowrka biyaha misaayada lacag lagu geynaya lowrka biyaha oo Mareer laga qaado sidii haatan xooluhu meeshay joogaan markii la yiraahdo ilaa 180 meelahaas lagu geeyaa baa lagu geynayaa dadkaas markay awoodi waayeen inay guuraan meesha roobku ka daay
balluurka biyaha $190 lagu geynayaa $190 baa lagu geeyaa dad baa hadii ilaahay idin keliya qof walba farmiilka qofka loo yahay buu baryaa wuxuu yahay inaad arwiigi xooliya dadkiiba waacaqay wali waxaan ku guda jirnaa in howlka ay ka socdo ayraade shirka looga arinsanayo abaarta ka jirta degmada Jiriban oo aad u daba dheeraatay howlkan waxa ku wasran gudoomiyaasha deegaamada hoos yimaada degmada Jiriban iyo sidoo kale xeebanada waxa kale oo iyaguna sidoo kale howlkan ku sugan oo maanta shirkan qaban qaadinayay soo nadaadinay maamulka degmada Jiriban ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Jiriban soo dhawaad deegaan xagabaad ka timid waxaan ka imid magaalada la yiraahdo Ceel Xagar gudoomiyaha Ceel Xagar baa ka warna xaaladda abaarta Ceel Xagar abaarteedu waa abaar aad iyo aad u faraweyn sidaanu diraac ugu fadhinay baa xagaa noogu dhashay si fiican wax roobana nama qaban hadeed ilaahu naga saar baan leenahay hadaad abaarteedii weydiisay sidaa weey ka waran dadka guuraya aynaada ciidka Ceel Xagar dadku ma ka soo guura mase dadkii soo rogmada waagi dhawaato sidii Ceel Xagar xaaladeedu ahayd oo ummadda ay isugu tagtay baa dadku u jooga dadka waxa la rabaa markaad waramaysaa hadee inaad si xaqiiqiyan oo rabbi kugu og yahay aad sheegtid si fiican Ceel Xagar xoolii way ka guureen wixii guuri karay wax badan oo aan guuri karin way degan yihiin si fiican dadku isku awood ma aha dad baa gaadiid leh dad baa hanti ay ku kireystaan dadna gaadiidna ma leh hanti ay ku kireystaan ma leh si fiican dadkii marka noocaas ah waa degan yihiin dadkii kale laakiin waxay istawaageen dadku waxay istawaageen meesha loo socday kuwa aan guurino magaalada degan xaaladooda horta bini'aadantinimada ka hor kuwaas waxa weeye xoolaha dadku xoololay weeye dad hadii alla ku roon yahay reer magaala ma ahan si fiican magaalada dadna magaaladu degan yahay dadna waa magaalada aageedu degan yahay baadiyaha ah si fiican dadka marka waxa weeye magaalada aageeda degan oo baadiyaha degan dadkaas noloshooda aad bay ciriiri u tahay hadda awalba xoolahii bay ku noolaayeen xoolahiina waxa weeye abaar baa haysata macluul baa haysata way baqbaqtiyaaneen waxa weeye waa dhimanayaan بالحقيقة way dhimanayaan ka waran biyaha biyaha Ceel Xagar muddo 8 bilood ah motor bay lahayd si fiican intii ka horeysay waxa weeye reer baraageed bay ahaayeen biyaha Jiriban baa loo qaaday may macnaha waxa awal reer baraageed bay baraaga meesha ka qodno si fiican baraagaas magaalahan Ceel xagee ugu dhaweyd waa hore waxa noogu dhaweey meesha la gudub jiraan biyaha laga soo qaaday hadda laakiin ayada cali yeelatay ka waran biyaha loorka biyaha meesha ugu sokaysa xagee lagu geenayaa meesha ugu sokaysa waxa lagu geeyaa dhulkaas dhul bacaada weeye baabuurtu wadooyinkeeda waa laga warqabaa kulli waxa la yiraahdaa habaal waalid bay magacyo u leeyihiin marka $200 $250 intaas lagu geeyaa waana dadkii guuri waaye inay awoodaan guuri waaye $200 lagu geenayaa xaaladda kale dadka magaalada waxbarashada iyo caafimaadka iyo adeegyada kale ayada ka waran maadaama xaaladda dadka ay saas u sugan tahay waa iyada ruuxeedu aad bay u hooseysaa caafimaadka ka waran hadda caafimaadka waxa caafimaad noogu ah Jiriban iyo Godob baan u aadnaa wax caafimaad kama jiraan waxbarashadu laakiin way furan tahay ka waran waxbarashada waxaan ogaa hadda ka hor iyadoo xaaladda waxbarasho aad u cakaran tahay oo wariyaal kale ay ka soo warameen in magaranaysa in iskoolada iyo xaaladeedu ka bacdi xog waxaan ku helnay dadkii loo qareemay wuxuunta kula ay gaadhay laba qol baan loo dhisay ilaa 5 qol oo kalena waa noo kireysan tahay annaga deegaanka baa kirada iska bixin laakiin iskoolkaas waa socdaa asaga ilaa dugsi sare waa laga dhigtaa soo dhaw caawin waxaad joogtaa degmada Jiriban waxa ka soo qayb gashay shirkan looga arinsanayo abaaraha ka jira degmada Jiriban deegaanaha xagee baad ka socotaa anigu waxaan ahay gudoomiyihii deegaanka Balbusle marka waxaan ka soo qayb galay shirkan sida sheegtay waa shir looga arinsanayay abaaraha degmada Jiriban oo saameyn badan ku yeeshay laba duruufood ba isugu darsantay ayadoo xoolihii ka guureen oo deegaanadii dhan ay xoolihii baneeyeen iyo deegaanadii inta ku harto guuri weeday ama inta aan reer guraaga ahayn oo aan helin roobabkii marka abaarta saameynteeda degmada waa runtii waa xaalad adag marka sidaas ayaa maamulka degmada iyo maamulada degsimooyinka iyo deegaanada
waxaa shir u iclaamiyey gudoomiyaha degmada Jariiban si looga arrinsado xaalkan adag ee soo wajahaya degmada Jariiban. gudoomiye Cawil marka waxaad nooga warantaa balbisle dadka hayaamay waxay u badan yihiin dadka xoolo dhaqatada ah oo xoolaha awoodi karin dadkii aan awoodi karin idinka ka maamul ahaan bal dadka degan marxaladooda ma jiraan dad xoolihii ka soo carooda ka soo baabay oo markaa ka soo wada xarooday mise waa iska gabaabsi iyo dabayaaqo iyo laftigoodu waa kuma taagna wallaahi niyow markii sidaas loo fiiriyo deegaanka Balbusle deegaanada aagagii u dhawaa iyo xoolihii xoolo dhaqatada meesha joogay dhammaan way guureen kii xataa aan xoolo badan haysan dhowr neef oo ari ah ama geel ah u joogeen wuxuu ayagii la raadiyay cunno iyo baad marka waxaa jira duruufo kale oo jira oo ah waxa la raray oo guuray waa xoolihii soconayay laakiin wixii liitay iyo dadkii maatada ahaa waxaa looga tagay deegaankii Balbusle iyo akabaabigiisa waxaa kaloo dhacday maadaama xoolihii guureen populationka deegaanadan wuxuu ahaa ganacsigu wuxuu ku xiraa xoolaha iyo dadka reer miyiga ah ganacsatadii ayagina dadkii bay ka daba tagtay marka waxaa yimid duruufahaas adag oo soo wajahay dadkii danyarta ahaa miyiga ku noolaa oo xoolahoodu tabarta daraayeen iyo dadkii magaalada ayaguna deganaa oo duruuftooda ku maareyn jiray dhowrka neef oo caanaha ah oo u jooga ku maareyn jiray marka waa xaalad dee u baahan xal bilaadantinimo iyo maaragtay u qarin biyuhu deegaanadu way kala duwan yihiin deegaanadii ceelasha lahaana biyahoodii waa jiraan oo dee biyihii waa joogaan waxaa saamayn ku yeeshay shidaalkii baa kacay dhibta jirtaa waxaa weeye abaartii oo dhacday iyo maciishadii oo kacday labadaasa isgalay qof kasta ay tabartiisii wuxuu maarayn waayey wixii uu maarayn lahaa oo ah noloshan iyo xaaladan adag ee maciishadda isagoo la halgamaya baa waxa ugu darsantay xaalkan abaareed iyo geedigan iyo baahidan xoolihii oo waxaan ugu wartaa deegaanka Balbusle iyo degsiimooyinka hoosmaada isku duuduub intee ceel baa ku taala ceelal biyooda waxaa ku yaala ilaa iyo 4 ceel ka warloobka biyaha meesha ugu shisayso oo biyo gaari booyada biyaha geenay dadka lacag mise inta laga balay qaadi karo qofka booyada waa laba son deegaanka Balbusle soonna waxa la yiraahdaa soonka cadduunka ah oo waa soonka cadduunka ah oo dhinaca hoose buuxiga waa dhinaca markii la sii durkado aan xuduudka galmudug kala yeelanayo dhinacna waa dhinaca hawdka la yiraahdo oo dhinaca koruxiga marka dhinacii hawdka ahaa baraagu ahaa baraagihii sanadkan biyo ma gelin oo roob ma qaban iyadoo aan sanadkii horena jiilaal ahaa sanadkaana aan roob gelin lowrkii biyaha marka qaalib iska noqo 250 280 170 siday u kala dhow yihiin bay noqdeen cadduunkana wuxuu sii marayaa lowrkiisii ilaa meesha adigu hadda waxa waadaxa jira waxa weeye qiimaha ugu badan inuu 300 280 ilaa 270 inuu yahay sababta cadduunka kalifasana waxa weeye dhulkii waa bacaad marka awal markii roobku da'o dhulku wuu adkaan jiray marka waxa yimid kharib dhulkii waa furfurmaya gaariga marka waa galaya marka waxa imaanaysa ninkii lowrka biyaha inuu jidkaba ku daadiyo reerkii dadkii ugu waday uusan gaarsiin inta ciid galo markaasna soo laabto lowr labaad qaado marka caqabadaas baa keenay in la qaaliyeeyo ka waran saaka maanta ka waran shirka marka maanta maxaa dadku deegaamada kale warbixinooda adeeystay iyo inta uu warbixinta uu awooday bal dadka yani degmada guud ahaan xaaladeeda maxaad qiyaaska dhacdo saaxla niyo xaalka degmada anigu waxaan ku qiyaasi karaa horta la isma dhaamo sida muuqata waa kala liitaayo waxa lagu kala liitaa dhinna barkadii waa sidaan ku sheegayo sanadkii horena biyo uma gelin sanadkaana biyo uma gelin wuuna dul fadhiya nina ceel biyood buu joogaa ninkan ceelka biyood jooga baadna ma haysto shidaalkiina waa ku kacay shidaalku marka ninka barkada jooga iyo ninka ceelka wada jooga waa ku wada kacay oo biyihii isku sibaa loogu geenaya qiimuhu dheeriya marka xoogaa waxaa moodaa inay naga cabasho badan yihiin deegaanada baraagaha ahaa oo aan sanadkaana roob gelin aan ceelasha lahayn laakiin marka xaqiiq la fiiriyo degmada Jariiban maanta wax ay isku dhaanto la oran karo waxaana isku dhaamaan ma jirto waa isleegihiin tabar ahaan way isleegihiin dhibaato ahaanna de duruuftan labaad abaartii way wada saameysay sixir bararkiina uu wada saameeyay
marka waa wax u baahan cid kasta oo wax ku dhaanta in wax looga raadiyo hadday dawlad tahay hadday ganacsato tahay hadday jaaliyad tahay iyo hadday hay-adaha bini'aadantinimada wax ku bixiya tahay in qayladhaan la sameeyo baan u malaynayaa inay hadda fursadda waxa furan oo hadda la isla qaatay waa guddi abaaraad iyo qayladhaantaas in la sameeyo oo deegaan walba sidiisa loogu gurmado aad iyo aad baa mahadsantahay waa kaaga mahadcelinayaa